صور كيننا واضح معها صور كنا أد واضح معها مركا محوها وانو اسكو دوبانينا ان شاء الله هذا وي شقينيا ان شاء الله هرجينا انو سايغو سي سocdo marka محوها hadii socon weydo waxay noqonaysaa inaan meel kale studio weyn tago oo TV-ga tago ay noqonaysaa hawlbaan ku diray may dib male waa shaqadayda aniga maalin kasta waxaan sameeyaa waa dib malaha adiga ama ku dhibay moogtay marka waxaan doonayaa adeer marka hore inaad iga warantid bal aad halkii nooga wadid waxaad tiri waxaan ku dhashay saraar soo maaha saraar baan ku dhashay haye meesha guurna xagga marka loo kaco saraareed meelay bal la odhan jiray ayaan ku dhashay waan gartay marka reer burxun baan iska ahaa waan gartay laakiin intii yaraantaadii intii hore waxaad joogtay xagga miyiga xagga miyigaan joogay intii hore oo shiiku iyo yidhi waa dagaalamayaa oo haddii beedankeeda ayaan marba ka baxsadaa ka carara waan gartay marka adiga shiikha daa intee lag baad ii dhexaysay waxaa noo dhexaysay 12 sano malaynaya ayaad kala weynaydeen maanta dee ilaahay cumriga ku dheereeya caafimaadka imti jir baa tahay imika dee taariikhii ma qora haye la qiyaastii waqtigii aan layidhi waa dhalatay markii ina cabdillah xasan kacay waa 1921 wakaa ayaad dhalatay markaasaan dhashay oo shiikha iyo ismay soo gaadhin miya sayidkii shiikhii iyo aabbaayba xaggaasuu jiray ina cabdillah xasan daraawiishtii buu ahaa هذا مركز سوق كسو بحصل مركي محاضرة تيمبالي هي أبها هي مركي هوري وحكا راعي مكوكا صورا هي أقول يا فرية تنجير بمكتبي هي مركز شيخ يدي شيخ الطريق يدي ور مستسير أفرية تنجير بان هيقول هي يحكمها السبول هي مركز سوري بس دابا أبايا ويدي أنا وحكي ونقول مايو هي الحسن بابا قلت لي ماشي أين عبد الله حسن هي بسبب ده كتاب قصص كأخذته هلكا وحكو برسا مركزو يركن هو أيو ومركزو ولا شيء ودي مركزو عين كسو دي عين كسو فيديو بابو شعر بابو كحست هي بربرة كسو دقين هي مركز بربرة كسو دقين أيا ليدي وار يركنوا يستقوا حبض المويدين إن عبد الله حسن يولاد هبر وره بيش تشوقي أيا يدي واران أن لا تشهد مقالده إن عبد حسن بودن يوش أباين للصعود مركز سويدي ومحين كل دقالمين مركز سويدي وهو مسلم كه خوف قلين مركز سويدي هذا حقرانيسو بل وحق بسوي هرت محاب يدونيسا واحد سويدي بوران هذا واحد يقول قرآن وكل دقالمين إنجليز صح مركز سويدي بدي سو حاجة من ده سوق قبول مركز سوق ده سوق قبول بدي وقت بدي حاجة إني حتى حاجة مركز سوق ده سوق قبول ومركز بدي أنا إن الدافي أما هل كذا كريدي هل كذا شوف مركز سولات فيدي أنا هو وعليني مركز الحاجة إنهم كمري مركز سوري الناس وين لي مركو كذا قاضي أيوة أركبتي حاجة كحكة مركز سوري نو ولا بالي دم على الشيخين يا مركز أبي ولا سعودي واحد دانية الموها سيدك مركي ودلك يمني ولا سعودي ولا سعودي وانقر ما كده أنا وحور راعي لا يو تلاحي يدلكو كده قلمي
halkaasay mareen oo meel ay burcaysay mareen oo ilaa meesha yidhaahdaan qoryo weyn oo ayay beel joogeen ayaama jubariye joogeen oo ciidan ka kaxaysteen oo ilaa taleex baabay tageen waan gartay halkaasaa muddo badan markaasuu u guuriyey sheekh bashiir walaashii sheekh bashiir buu gabadh iyagaa u guuriyey gabadh sayidka isxigaan mise sayidka gabadheenaba u guuriyey laakiin may ahayn sayidka walaashii may ahayn waa isku reer bay ahaayeen isku laf bay ahaayeen isku jili bay ahaayeen reer dalaal bay ahayd iyaduda waxaa la odhan jiray shaqlan cabdillaahi ow cumar ow cali dalaal baa la odhan jiray iyada waan gartay shiikhuna wuxuu ahaa bahgari buu ahaa reer xamar buu ahaa waad garanaysaa si fiican haa halkaasuu markaasaa iyagoo meeshii la fadhiyo ayaa mas soo dhex maray nas baa soo maray dad markaasuu yidhi waa laga beri dambaayo waa awliye baa layidhi waa awliye markaasuu dhashay sheekh bashiir baa dhashay zawiil baa dhashay axmed bashiir baa la yidhaahdaa buu yidhi nin gaala kaga cadhaysiinaya ninkaasaa iga dambeeya buu yidhi maasha allah marka magaca sheekh ninka bashiir waxa uu bixiyey sayidkii baa u bixiyey waan gartay maxamed bashiir baa la odhan jiray maxamed bashiir baa la odhan waan gartay markaasuu maalintii dambe ayaa la yidhi inankaasaa dhasha markaasuu yidhi magacaasaa la yidhaahdaa nin gaala kaga cadhaysiiya kaasaa iga dambeeya buu yidhi gaaladu kaga cadhaysiin doono marka dee markaasuu waa kii markii dambe berigaasa aabbahayna yimid oo beri dambe oo aabbahay baa ka soo baxsaday markaasuu inankaa ii doona colkii ku baxaayay in cabdillah xasan oo sayidkii bay aabbaha isfahmi waayeen hada wuxuu yidhi maxaad uga timi haddaad tahay markaasuu yidhi waxaan uga imi wanaaggeedii baan joogado maanteedii baa soo gashay buu markaa ma joogi karayo markaasuu yidhi haddaad tagtaan inanka sheekh bashiir la yidhaahdo baan la yidhaahdo maxamed bashiir صح haddii col hawar jeclo oo tegayo nin xasan farada odhan jiro abubakar cumar iyo ayuu ku ballamiyey oo ka mid ah raggii markaa sayidka ku duulayay ayuu ka mid ah markaa sheekh bashiirna markaa sayidku la joogaayo uu ka tirsan yahay waa dhalinyaro weeyaan markii uu soo baxsaday baa la yidhi sheekh bashiir sayid maxamedow ninka baxsada carruurtiisa waa la laayaaye maxamed bashiir maxaa loo dili waayey markaasuu yidhi maxamed bashiir aabbihii xarunta wax xun ka geyn maayo war xun ka geyn maayo gaala u sheegi maayo laakiin laba ninoo ayaa meesha mayuu yidhi haddii nin dad la leynayo cadow taagsaday iyo situugi hebel carruurtiisiba waa joogta waxaa laygu yidhi waxaan maqlay nimankiiba markaasaan inamadiiba la laayay inamadii labadaas dhaleen markiiba la dilay waan gartay markaasaa colkii uu ku ballamiyey baa markaa sheekh bashiiro ina bakar cumar oo ina xasan fareed la odhan jiray ayaa ku jiray colka oo col badan oo habar jeclaa bay ahaayeen waan gartay markaasuu inankaa doona inankii baa loo yeedha waa maxamed bashiir yaa yaqaanay markaasuu maqlo markaasuu u yimi askartii iyo wixii markaasuu yidhi waar way kale maxaa markaasaa la yidhi aabbaha baa noo soo kaa diray abayma ninka gaaloobay buu yidhi
sheekh bashiir baa yidhi markaa sheekhii baa dee saamayn sayidkii baa saamayn ku yeeshay oo markaasuu qabtay la qabtay markaasuu yidhi yaa isii daaye haye gaala yaan wasakhasine haye waxaan haddaba yaay haye waa la xidhxidhado waa aabbaha baa lagu geynayaa waa kan aabbaha waa sidaas haye asuu yidhi islaan aabbihii dhashado habara warahaydoo la odhan jiray makaaheel ahayd kumay dhashay aabihii sayid sheekh bashiir shikaari aabbihii haye oo ayeeyo u ah ayaa markaasuu yidhi islaantaasoo la qaada maahan idin raaci maayo ku qaadayaa dameer buu soo qabtay dameerkii buu ku soo kaxeeyado colkuu la socday intaasoo dee nimankana wax siinayo waday oo dibadinteeda markaasuu yimi waxaa la keenay beer beer soo ma taqaani si fiican beeri waa qaana haa togu maro toga burco tog dheer baa maree haye markaasa beer la keenay oo markaasuu dee u yimi aabbihii haye markaasaa aabbihiina markii uu yimi ayaa nin warjecla oo la odhan jiray ismaaciil jiir si aad u tukin mooyaane yeesifo reer robla ayaa yidhi nin baa ka soo baxsaday xaggaasoo in cabdillaahan soo galado haddii bedankeedareeyey wasiirkiisii ahaado waa in ninkaa la qabtaa aabbahayn waa la xidho ilaa hindiyaa la geeyey hindiya markuu beriye joogay baa sheekh bashiirna uu soo baxsado la keenado meeshii waa laga soo daayey oo markaa waxaa xidhay ingiriiska aabbaha xidhay aabbaha xidhay marka ma intii uu sayidka la jiray baa la xidhay mise markuu ka soo baxsaday intuu ka soo baxsaday marka khilaaf kale ayaa dhex maray isaga iyo ingiriiskii mid baa wax ku cunayay oo ninkii wax ka sheega xagga ayuu weliba mid annagaa buu ahaado ayuu ahaado marka ingiriiskii beenu sheego ku yidhi shiikhu waa caynkaasoo waa caynkaasoo wuxuu ahaa wasiirkii in cabdilla xasan oo waxaa loo qaban waayo kasaha laba la soo marka aabbahaa isagu wuxuu ahaa nin isaguna xagga diinta yaqaano oo ku fiican buu ahaa caalim buu ahaa caalim weyn buu ahaa caalim buu ahaa markii dambena waxaa igu maqaalaa inuu beer ku dhinto oo ku aasan yahay xaaji xasan baa beer ku dhintay haye xaaji xasan kursa yareeg haye geeleeg magaaladaba ayaa aabbaha yimi oo toguu ku aasnaa markii hore qarkiisa markaasuu ka soo saaro buurta yareeg geeleeg la yidhahdee magaalada ka soo saaray isagoo intiisiiya ayuu halkaa lagu aasay awliyadu isma bedeshaa la yidhi awliyadu isma bedeshaa la yidhi awliyadu bedelin baa la yidhi waaba iska sidiisii iska ahaa haye dee beri dambaa shiikhu meeshiiba baanu degnado halkii oo aqal uu ka dhisay sheekh bashiiro markaasaa aniguna islaam buu igu guuriyey adeerkay ka dhintay haye waa dhaqankii soomaalida weeyaane aniga oo yar haye markaan muddo joogay baan idhi oo maxaa meeshan ku dhigay geeli wax kasta hooyaday oo nool waxba kulli markaasaan iska baxsadoo talyaani iska qabtay talyaaniga tagtay markaa waad yareedna marka bad raacda maya lug baan ku socday haye burcaan ka baxay oo jigjigaan maray oo diri dhabaano lug baan ku socday intaa oo adeer tahriibta nimanka la maraya malaaberiga saabad bilowdeen haye berigaa mara kii ugu horreeya baan habanu mulay haye kii ugu horreeya baan habanu mulanaya haye markaasaa
حقنا إسراق وحكومة ترى إنجليز هي حقنا طلياني صح حقنا طلياني حقنا إنجليز وحكومة ترى صح يعني مركز مركان جوجني برعك بحني صح أيام مد للمصاب فرعوس توجها ها نجلس تلومها أيا نراعي قاري جبنا قارن راعي ست هي كم كان سيسعني ها أيوة هسه يا هي ناقمدو بمميرة تاي هي ميرة تومي بوكر هي إلى يبان هو إيجي مركز لو قصقص هي مركز اللي وريا ياتا هي هو بلال بالورنتي لو توجوا هي waxaan ku arkay Tanzania ku qoladii reer beereed buu ahaa maraya baabuurtu wax kala degi jiray waa raggaas u ahaa marka waxaad ka tagteen Ethiopia ka tagteen Suudaan baa martay mana maranaya marka waa markii hore sheekadii baan ku noqday haye marka waxaan qabtay midba dhulbaanta baanu israacnay iska horta kiiba ay kaxeeyeen habeenkii baanu Hargeysa u sii hoyen haye Hargeysa markaan nuu hoyanay Burco ka tagnay ayuu yidhi halkaa ii seexo aqal yaro ayuu yidhi halkaa ii seexo alaab baan kuu keenayaa soo waa tuug doobi buu jabiyey oo dharkii oo dhan soo gubtay orduu ii yimid oo yidhi waryaalka kackaba alaabban sidaayay oo waa dharka kano waa go afarta dacalka xidhan oo buuxa oo dhar maydhana ayuu keenay markaasuu yidhi meelun inoo ged ibinaynay war maxaan garanayaa maxaad keento meel baan ka soo qaaday buuri ka soo xaday war naga tag baan yidhi ma diiday ha subaxdii buu iska kacado buu qaatay aniga oo meel maraya ayuu ra'iis buu ku jira waa xeeranaya waa meesha waa halkee markaa waa Hargeysa waan gartay markaasuu yidhi waa xeeranaya markaasuu leeyahay naagmada maya markaasuu ii yeedhay arkay isagii baa ii arkay markaasuu yidhi waryee nacas bartay wadigii xalayto alaabtii laga iibiyey oo dee lacag baan ka qaato haba ma ahabaani halkaa markay maraysay baan misana waan jeedaa xaggaasan galbeedkii aan kaaga sheekaynayay ayaad rabtaa inaad qabatid ayaan qabtay mid baanu israacnay oo gaari wada raacno gaarigii markuu joogay meeshii xuduudkii talyaaniga iyo ingiriiska ayaa nin talyaani gaarigii iska galay oo gaarigayigiiba uu kaxaystay waa markii markaa Ethiopia talyaanigu haystay waa markii Ethiopia talyaanigu haystay markaasuu yidhi markaasaanu israacno gaarigiibaa nin faranji iska kaxaystay markaanu meel dhexe oo magaceedii waaba ilaaweeye xuduudka ah waa gartay gaarigii baa nin talyaani iska kaxaystay inan baana daba gaarigii kalaa yimi oo gaari kalaanu iska gallo inan baa yidhi waryaahe waxaan ahay dharkaasan sitaa lacag mahaysta iga bixiye yaa jistiga markaasaa layidhi qolamatay waa niman reer Hargeysa midha waa isaaq midha waa habar walwalba waan gartay layidhi qolamatay markaasuu yidhi waxaan ahay nin dhulbaantaa baan dhulbaanta markaa no aba ka sii jeestay markaasaan idhi waa dhulbaanta maaragaaraho ayaa lagu dhahdaa ina maxaa la yidhahdaa buu yidhi waan garanay markii walaaladii iyo gartay reerkoodii lacagtii baan ka bixiyey
waxaanu galnay jigjiga jigjiga markaynu gallayba marna waxaanu sheeganaa isaaq mar dhulbaanti marba meeshaa maraysaan marba meeshaanu marayn ninkii aan lacagta ka bixiyey geeyey nin jigjigaanu hooyanado ka tagnado adeer baanu tagno adeer markaanu joognay buu nin ii geeyey aanu dhulbaanto oo baaraysama yaanu seexan jiray anti dambaan yidhi wariyahay uma lamana ogola isaaq baa xukuma xagga ah burco iyo xagga talyaaniguna xaggan u xukuma ingiriiskuna xagga mana ogola olana inuu tagto halkaasaan subaxdii dambe aan isiri waxa doonataa bal isaaq doono kiina meel baanu wada seexana oo dhulbaantaanu nahay waan gartay marka goormaa dhaafteen meeshii Ethiopia goormaa dhaafteen oo aad gaadheen dalkii ku xigay matalan Ethiopia soo kuma socon talyaaniga soo kuma soconin talyaaniga ku socday dee waa talyaani weeye markaa okay waan gartay talyaana fadhiya marka ayaga wada u gashay markaa waan gartay isaaqa lama ogola inuu xaggaa tago lana dee ingiriis baa xukumaya isaaqa waan gartay ma haddaad sheegato oo kale qoladaad sheegato waa gudahaabta waan gartay marka adeer markii aad Ethiopia oo talyaaniga joogo aad u gashay ma sidii baad ku maqnayd mise dalka dib baad ugu soo noqotay waan tegey oo askari baabaan noqday oo dib idinkeeda leeyihiin xaggaasaan tegey xaggii talyaaniga beri dambe ilaa haadama iyo haswaas iyo dhulkaasaan tegey sheekhisaan baa layaaliyo dee qarni bay ahayd waan gartay waqti hore ahayd dadkii dee waxba kama noola dadkii aan waa sax weeyaan markaa dalkii dib ma ugu soo laabatay mar dambe kusoo laabtado caruuraan ku dhalay oo dib idinkeeda leeyihiin sax waan gartay waayahay markii dambena Tanzania East Africa mar dambe aad tagtay oo aad 20 jir meelaha markii dambe sheekha ay ugu yimid oo mari yimid oo markaan ka soo talyaanigii baaba'ay xaguu kugu yimi wuxuu igu yimi markii aan aniga talyaanigii horeba ka soo baxsaday maya talyaanigi markuu caray baan ka soo cararay afar nin kaga soo baxsan geriyaad oo man la yidhaahdo banka geriyaad صح ayaanu habeeno saddex afar nin oo habar jeclaa ayaanu hayn waa meesha haraad baa lagu baktiyay haye xilliga abaarta meel badda oo Jabuuti lug haya meesha yidhahdaan ayuu na geeyo ilaa halkaa gaadh ka qabto haddii aad aragtaan diyaarado iyo wax soo khabaarkeena dee habeenkii bay qaadeen oo diyaarad ingiriisi na dul suratay qorax markaasay dunidii oo dhan duqis markaasay cararay meeshii baa xeradii baanu nusiyey taga baddii oo soo caariday baanu iska jiirnay meeshii oo xalay aanu tagno talyaanigii ka tegey waa ka daba cararay markaasaan war ninkan oo jabiya aan iskaga tagno waan gartay qaran waxaanu noqonnay 5 nin shantayadii nin ee habar jeclo mid waa Muuse Abukur midna waa Axmed Faarax guuleed baa la oran jiray markaas mid baana diiday reer biniin oo yidhi tegi maayo waa miyaa waalantiino halkii baanu qoryaa iyagii iyo bambaanayaashii wax iska soo qaadan ciisii baa jidka naga helay ciisii baanu bambam iyo waxaa ku sidanaado waa iska dameer baanu ka kaxaysay
waan gartay waayo haddaan kusoo noqono marka qisadii sheekh bashiir waa kanoo laga soo kaxeey meeshiiyo waa kii islaantana laga soo kaxeey dameerka lagu soo qaaday meeshii mudduu joogay marka shiikhu isaga maysi soo gaadheen ninkii kale halgamaagaha la odhan jiray faarax cumar faarax cumar haa haye faarax cumar waa ka horreeyey muddada waan ka haye oo muddu isagu sii dagaalamayay haye faarax cumar markii intoo aanay kicinba dagaalku oo aanan teginba xagga ayay adigu miyaad degaran maysid adigu may waan taariikhdiisaan maqlay taariikhdiisaan maqashay si fiican marka isagu wuxuu jeclaa in dadka lagu kiciyo ingiriiska muu jeclayn xabad la qaato xabad lagaga hortago muu jeclayn wuxuu yidhi jaaco cumar ay faarax cumar marka way isku khilaafeen shiikha sooma sheekh bashiir wuxuu doonayay in qori lagula dagaalamo faarax cumarna wuxuu doonayay in si nabada laga kiciyo wuxuu doonayay sheekh bashiir de isagu iska suufiya buu ahaa waan gartay markaasuu u soo dhaweeyey oo aqalkii aanu seexanayn oo burca ah ayuu ku soo dhaweeyey oo waa la iswaraysanayaa annagan yar baana iska dhegaysanaya haye markaasuu wile faarax dee gaalada boqol baa tahay maynu haddaa markaa maynu la jihaadno oo la dagaalano nimanka haye aan la dagaalano haye dee haya sheekhow waxa la yidhi dad wax samaynayso wax u eg baa horta la doontaa buu yidhi meesha tan dagaal buu yidhi anigu dawladnimaan ku dagaalamayaa buu yidhi oo inaynu dawlad helno oo ingiriiska kicinno ingiriiskana la colka tahay aynu erino oo dadkoo dhan istiraacaynu meel ka soo wada jeedno ayaan doonayaa buu yidhi dee adiguna waxaad doonaysaa buu yidhi inaad naftaada un biimayso nafteenna biimayso waa biimo dhacayn karo maxaynu haysan markaasuu muslimkaad qorof gelinaysaa waa sidee dadka muslimka ka bajinin ayaanan bajinin maxaynu haysanaa waaye labadeennana meesha kulmaye anigu afbaan ku soconayaa oo haddii badankeeda leeyahay ilaa taleex ilaa halka kan ilaa meel kasta waa dadkan israacinayaa buu yidhi haddaynan dadba haysan waa faaraxo markaasi faarax cumar weeyi waan gartay haddaynan dadba haysan oo dawladnimaba haysan aynu kula dagaalamayno meeshii baado markaasaan aniguna wax yar baan ahaa oo isagun baan doonayaa dee hadalkiisaasan qulo kan inuu ruu sheegayo markaa waa dagaalami karaa buo dadkii baynu wadanaa buu yidhi oo dawlad baynu nahay oo in dadkoo dhan isu yimaado israaco imika labadeennun baa wada hadlaynaa buu yidhi labadeennu maxaynu ka qaban karaa buu yidhi markaasuu meeshiido faarax cumar dee wuxuu ahaa nin siyaasi oo cilmi leh oo dii badankeeda leeyahay isagunbaba meesha soconaya markaa dawlad meeshaba isagu dhaqaaqaya dawlad kale iyo wax kale iyo waxaa lalayaaba maba jirin waan gartay marka nin walba markaa wuxuu sheekh bashiirna wuxuu sii waday dagaalkiisii faarax cumarna wuxuu sii waday sidii kale uu nabadii ku doonayay uu sii watay markaa oo dhan isu yimaado israaco ingiriisku markaa waa la kicin karaa buu yidhi waynu iska eryi karaa waan gartay laakiin labadeenu ma waxbaynu eryi karaynaa buu yidhi waan gartay sheekh bashiir ilaa u naxariistee markaa dee nin halgaamaaya buu ahaa oo naftiisa u huray inuu dalkiisa ka kiciyo gumaysigii meesha joogay marka qorina wuu doonayay inuu dee isagu ficil buu aaminsanaayo xitaa waxa igu maqaalaa dad buu ku yidhi mar war bisin keliya waxba tari maayo ficil hala raaciyo hadal noocaasna waa qori ragaaba buu ahaa haye subaxba anigoo geela hor joogo 12 jire ayaa laba qori la iilayin markaas qoriga kan sheekh bashiir baa ii soo diray wuxuu yidhi
inankaas cabdikarim la yidhaahdo u geeya geela caynkaasa markaasa marka qorigii baa taagay waa qori laba qori oo lexla gaabyaa weeyaan waan gartay qorigii markaan saddexdii neef siiyey ee uu isagu soo carifay ayaa una saddex aan leeyahay kii kale ku iibsaday beer baanu joognaa u dheer nin dagaal daahir in cali fadhiisana meel la odhan jirto oo reer beereeda ayaanu subaxdii aniga mid kale war qoriga ii soo qaadkan aanu mareebnahay hudheelkii baanu gallay qorigiis kiisii baanu dhiibay marka kaygiina anigoo sita kii kalena anuu sita war ma dee waan iibsaday baan idhi markaasuu yidhi muqadim baa tahay muqadim markaasaa la yidhi war ma inanka yar baad inanka markaasuu waa fariida daadaaye kaasaan doonayaa markaasuu meeshii waado maxaan waday iminka qorigii baad haysto markaa qorigii wixii iyo reerkii iyo markii waan uga baxsaday waan kaday waa markii waa intaanan teginba weeyaan waan gartay inta xagga qabanin weeyaan intaanan xagga qabanba weeyaan qorigii iyo reerkii iyo xoolihii iyo waan iskaga tegay waayahay shaqadii talyaanigana iyo aniga lahaa geerayaal baanu ka soo baxsanay waayahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sheekh bashiir waa kan dagaalamaya qoriga sita isaga rag kale ma la socdeen oo ciidan ciidan kale ma haystaan dagaal ya markii la dilay ma intii la dilin ka hore uu dagaalamayay ma keligii baa qori qaadan jiray oo ingiriiska marba meel kaga soo bixi jiray mise rag kale watay maya nin baa la socday reer yuusuf oo ina caalin la odhan jiray caalin saleebiyo waatolo bahawal haye ninkaana waa la dilay labadooda meel la dilay qolkii kalena waa ka caadaray maasha xiyaaceen waan gartay marka isagu sayidku markii uu dalka laga saaray ingiriis jabiyey sheekh bashiir miyuu ka dambeeyey oo uu sii joogay weli soo maaha waa ka dambeeyey wuu ka dambeeyey isagu bal waxaad nooga sheekaysaa dhacdadii markii waxay ugu maqaalaa inuu burco bara saabka uu habeen u galay albaabka u galay oo seexday oo hargeysaan joogay markaa habeenkii la hargeysaan joogo kuug baan ka farinji haye markii horena cadan baan joogayoo cadan buu iga soo kaxeeyo markaasaan goor galaban baa la yidhi warya sheekh bashiir baa yimid oo qori buu sitaado anigoo shaqadii ku jira bangaraada cadan oo kuuga ayaa lay walaalkaa galabtuu yimid oo qorigiina waa sitado waa la dido odayaashiiba dabeeto yidhi annagaa naga taqaano waa kano waa keero markaasaan tegey islaan eedad ayaa meesha yaxya loo odhan jiray marigi yaxye ayuu ugu tegey waa burco waa cadan meesha waan gartay haye waa intaan la dilin waan gartay haye markaasuu yidhi wala xaggaad ka timi markaasana waxaan ka imid dee shaqadii baan rabay shaqada magaalkaad u shaqaysa markaasaan markaasuu yidhi oo maxaad u qabataa cuntadaan u bisleeyaa baan markaasuu madaxa qabtay kitaabku ku qabay waa xusuusna kitaabku ku qabay oo waad nafaqaysaa buu yidhi waad nafaqaysaa gaalkaabaad nafaqaysaa buu yidhi halkay kala taagan yihiin
halkay kala taagan yihiin isaga iyo ingiriis markaasuu yidhi oo maxaa xusuusiyaa de wax yaroo lacag uu siin jiro 40 bood iyo murti waxay ahayd ayaan qaadan jiray markaasaan bangalaal baan ka shaqayn jiray oo unkuka markaasuu muxuu siiyaa de intaasuu siiyey wax yar buu siiyaa baa tiri quruurux baad u gaalowday buu haye cagtu quruurux odhan jiray haye quruurux haye gaalooba jiray anaa quruurux siinaye muu hayn nin adduunyo jecelba muuhan aaminsanba muu hayn adduunyaba waxba lama hayn markaasuu waxaanaa ku siinaye ka kaaray inakeen budaa ku noqon kuma noqonba waan gartay markii haddaba waxaad nooga sheekaysaa markan uu qisadii sidii loo dilay maxaa xaggaa joogta adriga markii la dilay xaggaa joogta adugu hargeysaan joogi hargeysaad joogtay markaa maxaad ka xasuusataa markaa dhacdadaas anigoo subaxdii soo gala oo ilin baxsaday mise oo ku kala noqdo oo hargeysaan ku kahay iya ayuunbaan suuqa usoo dhaadhacay markaan suuqii usoo dhaadhacay barkadii ayaan meel walba waxaan ku maqlaa sheekh bashiir shalay galab baa la dilay oo meel yidhaahdo buhor yare dusheeda oo waxaa lagu dilay barca laguma dilay buhoodla lagu dilay agteeda buhorlayare lagu dilay oo xaggee ku yaalla furaha wuxuu ku yaal buhorlayare markaad aad caynabadii ku socoto kirir maaragta kirir iyo caynaba udhexeeya kirir iyaba udhexeeya iyo burco kirir iyo burco udhexeeya waan gartay haye iyo burco halkaasaa lagu dilay markaasaa lagu dilay markaa wuu dagaalamayey markaasuu habeenkii dhanbuu colka soo kaxaystado waxbaba wadan oo 2-3 nin ay yihiin ayuuba miray oo burco ingiriiska wuu miray ingiriiskii buu miray iyo waxba kama dilin meeshii ka tage oo halkaa markay tageen bacol xoogle ka daba tegi subaxdii unbaba ugu waaberiistay halkaasaa lagu dilay markii aan dilkii shalay galab dilay unbaan maqlay magaaladii usoo dhaadhacay goor barka markaasaa la yidhi meel walbaba afka laysku hayaa aniguna iska aamusan gaarigaabaan ku dhacay gaariga hargeysa ka yimaada iyo kabaco ka yimaada kakada ayaa kulma way soo tagaan way soo wareystaan ana waa dhegeysanaya shalay galab baa la dilo oo geelii iyo wixii o dhan baa waa la qaaday baa la dilo markaasaan yidhi waan suuqma idhahdo booradu saas isaga hor imanaysa waa istaaga way soo wareeyaan ana waa iska dhegeysanayaan maxaan qaban kara kumana garanayaan iya garanayaan ma qaban kartaa markaa ma run baayo markii la dilay ilaa u naxariistee banaanku iska yaalay dhowr maalmood oo sheekadan haddaa dadku lagu yidhi la yidhi sheekh bashiir markii la dilay dhowr cashuu banaanka yaalay oo xitaa waa kii lafcan bana ka gabiyeeyey lahaa ninkaygii subaxdii ka tegey burco aan hargeysa iyadoo la aasanti laakiin dee waxaa laguu sheegay in 2 casho ka hor la dilay shalay galab baa la dilaa la yidhi maalintaa marka waa maalin habeen unbuu beriyey markaa habeen unbuu beriyey
habeen bariha ugu dambeyntii adeer aad iyo aad baad u mahadsan tahay ilaahay waxaan kaa barinaa caafimaad iyo cimri fara badan sida loo sharfay matalan taalooyinka looga dhisay dalkii ama Soomaaliya Somaliland iyo dhulka magacyada iskuulada loogu magac daray markaasaan galay magaaladii galay waan gartay haye markaan galay baa odayaashii baa meel walba ka sheekaynaya oo dilay sidii cabdilla loo qaaday markaasaa soo anigana waxaa la yidhi kolkii la socdayo waa raggi baxsada ku jira kaasaan u daloo la yidhi oo sawkan maaha wariya maxaa ku keenay meesha odayaashii uqaas iyo dadkii oo dhan sawkan maaha markaasaan wayay doonaya dowladda ku doonaysa iska baxso doonaysaa waan iska dhaqaaqay waxaan u tegey xafiiskii baan galay xafiiskii ma hor taagan yihiin xafiiskii ingiriiska tagtayba kii bara saabka dcga u tagtay markaasuu mid baan gaadhkaayo oo sidaa u hor taagan chamber baa la odhan jiray waan gartay dcga markaasaan muraadadii markaan istaagay ayuu yidhi war maxaad leedahay markaasaan war sida baan u sidaayay isiida odayaashii oo dhan oo wada fadhiya ayaan u jid waa wadnaxay kasawkan maaminkiibu markaasaa kii lawadawaalay war wuxuu ku yidhi warumi war sida baan u sidaa buu ninka kan markaasuu yidhi waa maxaa markaasuu yidhi markaasaan yidhi waxaan maqlay waa lagu doonaya sheeg walaalkiisaan ahaa shaqadaasaan hayay halkaasaan joogay hargeysaan joogay waa kan cidna uma sheegin baan waxaan idhi haddii lagu doonayo taasna inaad u tagtaa waxaa la ii doonayo حد اللي يستوي في واحد هذا ورجستي كل اللي يشوف هذول يستنى صورنا يا تسمع هذول يا دمشق عروسي وهكي ماشي حاجاتي انا كلام بس واحد سؤال حولي يجيلي فقاسي واحد ينسى حق وقت كيف أورنا يفرج قاسي يا مقبول ما أنت هاي نوعها صار دموعك هاي نوعها كما قاعد يستهرها يرجي تقلب كذا يرجي ما حاكر وحضو يعروفي ما شفت يفوق يده حاسس ايوه دقيقة حولي لقى قاضي حولي لقى قاضي يربى شوف ايه يربى شوف ماشي هو ودامكو ماشي هو حويا ودامكو لك أولئي ها وانقرت هي ودامكو أنت وحدتي ما يقول جبنت اليوم ليش ودامكو لا يقول جبنت هيك أصلا كهري وسقنا ودامكو دو وانقرت هي وما إلى هذا مكرر با كرب ما انت انا تقالي وهل كل ود لي يا ريت لي ماشى انت يا ولي بكره بو هودلي انا متري بو هودلي هكا كسرن وان قلت هي marka meeshii baad magaalada reerka baad tagtay inta buu taginayaan wadaamo guriga ma qabo bas wada hada يعني كهذا انت كان دشة يا رساسي وانتي ميكي او
heemadii halkoo goor marka ay taado halkaa mid hor taagan yahay ayaa heemadiisii aan gartay kii gaadhka ahaa ee kan gaadhka hayay yaa markuu arkay ninkii fadhiistay arkay buu ii yeedhay ma soo daayey anaga wadaadayno anleeyo mar qalab waxaan sidaa khabaare cusubaan sidaa kuma soo dabadalado maashiin soo saar saastii wuxuu iskana wuxuu fadhiyaa intaale oo shaam soo fadhigay markaa markaasi arkay kacayba waa ka qus oo baqayo ana wixii dhan baan u daadiyey waaba dili kar lahayd maalintaasi waxaan u dili waayey carruurta yaryar ayaan dee yani waxu maaha ani waxba kama hadheen صح صح ولا انا يقولون هي markaasuu dib u fadhiisan intaa ka badan xaqaaqo intaaye ayuu arka markaasuu marka dhigay markaasuu yidhi marka odayaasha habar jeclooda meeshay ku siirsan yihiin waa lagu kulmado waxay ka baqayaan in or kale lagu bixiyaa hore kale lasoo qaado markaasay yidhaahdeen markaasuu yidhi waa alaabta markaa dhigo dib u fadhiisto kii yaroo yidhi ku dhufo firimigii uu ku dhufo odayaashii oo dhan bay isugu yimid waxay garanaya iyo waxaana garanaynba warkii sameeyey kan waa doonayey markaasuu yidhi anaa idin yeedha buyi ninka kan waxay walaalayiin ninkii bay walaalayiin la dilay waa walaalkii alaabadiina alaabtana waa sigay naftaydiina wuu badbaadiyey buyi way nabadgeliyey sidaa way nabadgeliyey ay nabadgalay buu yidhi isaguna u qaban karayo wiisha weydiinayana doonayana hay weydiiya buu yidhi markaasana wax kala dooni maayee carruurtii yaryaray laga qaaday halkii macluul ugu baktiyaysa ayaan ugu tegay baan idhi waxaan u baadhiyo wax subaaxan kaasaan ka helay baan wixii lala socdayna ka hari maayo waana dabagelaya iska hadlaya markaasuu madaxa rorayay ana dawladda wixii aad doonayso ayaan weydiinayaa ku waan gartay waayahay runtii taariikh fara badan oo taada iyo shiikhii bayna naxariistee maaha wax la soo koobi karayo aadna waad ugu mahadsan tahay xilliga aadna siisay waxaan rajaynayaa mar imaka maanta waxaynu joognaana minneapolis baan joogaayo gobolka minnesota adna waxaad joogtaa new york may maqlaysaan soo lay maqli maayo marka laakiin waxaan rajaynayaa mar aynu wada joogno oo xitaa sawirka videogu inta kasii fiican yahay baan jeclaan lahaa insha allah mustaqbalka khayr iyo caafimaad iyo cimrina ku rajaynaa mar kale waxaan se ku weydiinayaa hadda shiikha meelo badan baa lagu magacaabayo taalooyin iyo iskuulle iyo sidaad u aragtaa magaca noocaasa wallaahi anigu markii shiikhi la bixay meeshii aan arkay ayuun si kale aan noqday السلام عليكم جمال والله ها ابراهيم بالله هذا والله عن كبح وريسك اي سعودي ولا انير اي هيا waxaan rabaa taariikh qabilan xasuusiyo inuu ku sheego هيا qofkii ninkii dilay Sheekh Bashiir Ducaale Yare wala yiraahdo ninkii Ducaale Yare ma
oo ninka waa meel walaal aad baad u mahadsan tahay inankaasna wuxuu ahaa inan uu dhalay xaaji cabdikariin xaaji yuusuf xaaji xasan marka oo ninka dilay ma nin soomaali buu ahaa ma cadaanba ma anaba miyaanu ahayn ya labada nin baa ku murmay haye calayare iyo gaydhar oo caraba ayaa ku anaa dilay markii ninkii dilay sheekh bashiir toogtay waxaa la siinayaa lacag ayay ku murmay marka gaydhar ruuxo iyo ka kalena magaciisa ruuxo gaydhar ruuxo haye ka kale magaciisa ducaalayare waan gartay haye ducaalayare waa inagu haye waan gartay marka ducaalayare isagu annaga oo wada soconay ilmo bashiir oo dhan oo yaryar oo masaamici buuxoo hormarayna ayuu noo yimid markaasuu ilmo bashiir miisoodna walaalkii miihida waxaan maqlay buu yidhi labadaa nin wadaad dilay masaajidkii waa kan shiikh baa markaa meesha u shiikh ahaa masaajidkii inaanan dilin oo waxba ku dhafay oo aanan markii la kacay la yidhi isagiina dhintay layidhi xoolo badan baa la bixinayaa ninkii dilay oo kan u sheeg ayaan kuay buuli marka ka sidaale waa kuma ka sidaale waa kuma waa ducaalayare ducaalayare masaajidkii buu galo ka dhaartay ducaalayare nala galado masaajidkii bal shiikhii ku daariyo uu ugu dhaartay waan gartay inaanan macluumaad muhiim weeye gaydharo isagoo qurmay ayaan hargeysa kakay miri hoosteeda isagoo jiifo oo diqsigu sidaa ku qurmo googo-ay ayaa laykaalay ninkii walaalkaa dilay siduu noqday ilaahay baa dilay markaan tegay diqsigu sidaa ku markaasaa la hadlayno yo magaranayso waa sheekh bashiir walaalkii kan waxba kala ogin waayahay adeer aad iyo aad baad u mahadsan tahay waraysiga kolley macluumaad fara badanna waad haysaa insha allah waxaan rajaynaa mar annagoo wada joogna inaynu intaa in ka badan samayno iminka new york baad joogtaa annaguna waxaan joognaa minnesotaan joognaa oo khadka skype-ka ayaanu kugula soo xidhiidhnay si aanu bal waxoogay macluumaada aanu kaaga qaadno dee ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo somalilandba aad la wadaagtid marka aad ummadda dhan isagu u dagaalamaya isagu ummadda soomaaliyeed buu dagaalamaya isagu waayahay kaasi wuxuu ahaa xaaji cabdikariin xaaji yuusuf xaaji xasan oo ay walaalahayeen halyeyga weynaa ee sheekh bashiir xaaji yuusuf dhammaantiin waa mahadsantihiin waraysigaan aniga idiin qaadiyey oo ah weriye siciid jamaal oo jooga magaalada minneapolis ee gobolka minnesota xaajigu wuxuu joogaa magaalada new york buu joogaa waxaan kula xidhnay saanu sheegnayba skype-ka runtii macluumaad badan ayuu naga siiyey oo qaar xitaa mugdi nagaga jiray oo noo caddeeyey insha allah waxaan rajeynaa mar kale ayaanu si toosa ula kulanno anaga hor fadhnaa wax badan ka duubno tvga somaliland ayaanu barnaamijkan u duubaynaa aad iyo aad baad markaa u mahadsan tahay aad baan idinku mahadinayaa haddaad dowladnimo u hesheen aynu waxaan helayayaan anigu wax kala sameeya dee waa u ducaynaya ilaahay muraadkeeda waxaan muraadka leeyihiin ha qumi ilaahay wax warsan insha allah hada kala reeb maayo soomaali waayo soomaali ya maasha allah waxyeelun badan hay yaale